wardegdega banaanbaxayaasha dalka Kenya oo ku hanjabay in ay weerari doonaan guryaha xildhibaanada dalka Kenya isla markaana ay waxyeelo u geysan doonaan qoysaska xildhibaanadaasi haddii aanan wax laga dhimin canshuurta la kordhiyay gudaha dalkaasi Kenya. wararkii ugu dambeeyay hanjawaad culus oo loo diray madaxda dalkaasi ayaan sidoo kale muuqaalkan idinku wadaagi doonaa xilli laga cabsi qabo in maanta halkaasi ay ka dhacaan banaanbaxyo xoogan. wararkii ugu dambeeyay banaanbaxyadaasi ku aadan ayaan muuqaalkan idinku wadaagi doonaa, balse marka hore waxaan ka codsanayaa daawada inaad YouTube-ka subscribe saarato sidoo kalena gambaleelka aad furato si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkan ku baahino. mahadsanidin. waa tahay abaabulayaasha banaanbaxyada gudaha dalka Kenya ayaa ku hanjabay in mar kale ay weerar culus ku qaadi doonaan guryaha xildhibaanada ay degan yihiin oo ku yaala gudaha dalkaasi Kenya, waxayna ku hanjabeen in waxyeelo ay u geysan doonaan qoysaska iyo caruurta ay dhaleen xildhibaanada haddii wax laga dhimi waayo canshuurta la kordhiyay gudaha dalkaasi Kenya. abaabulayaasha banaanbaxyada ayaa sidoo kale waxa ay ku hanjabeen in raashinka yaala guryaha xildhibaanadaasi ay dhici doonaan isla markaana ay soo qaadan doonaan si ay u dareensiiyaan baahida dadka shacabka kadib markii gudaha dalkaasi Kenya xildhibaanadaasi dalkaasi ay meelmariyeen miisaaniyadda dalkaasi ee dowladda Kenya isla markaana canshuurta loogu kordhiyay dadka shacabka ee ku dhaqan gudaha dalkaasi Kenya. abaabulayaasha ayaa sidoo kale waxa ay ku hanjabeen in waxyeelo culus ay u geysan doonaan caruurta ay dhaleen xildhibaanada iyo qoysaskooda kuwaas oo meel mariyay miisaaniyadda dalkaasi, waxaana laga cabsi qabaa in saacadaha soo socda dalka Kenya ay ka dhacaan banaanbaxyo rabshado wata iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyay halkaasi ay ka dhaceen banaanbaxyo culus kuwaas oo waxyeelo loogu geystay goobo ganacsi oo muhiim ah oo halkaasi ku yeelay isla markaana qarash fara badan uu ka galay dadka shacabka ee ku dhaqan gudaha dalkaasi Kenya. sidoo kale waxay waxyeelo soo gaartay saraakiil iyo sidoo kale askartii ka hortageysay banaanbaxyadaasi iyadoo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala gudaha dalka Kenya, iyadoo mar kale laga cabsi qabo in halkaasi ay ka dhacaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dowladda Kenya isla markaana ku aadan canshuur kordhin ay sameysay dowladda dalkaasi. sidoo kale abaabulayaasha ayaa ku hanjabay intii hore ee noqon doonto mid janaax isla markaana mid ka xoog badan ay dhigi doonaan banaanbaxyo isla markaana ay weerari doonaan goobaha muhiimka ay degan yihiin mas'uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi Kenya si ay u dareensiiyaan baahida xoogan ay haysata shacabka dalkaasi isla markaana lagu kordhiyo canshuurta dalkaasi. xildhibaanada dalkaasi ayaa waxa ay meel mariyeen miisaaniyadda dalkaasi iyagoona canshuur kordhin lagu sameeyay shacabka gudaha dalkaasi Kenya, waxaana halkaasi ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wata kuwaas oo qalalaasi ka abuuray gudaha dalka Kenya.